magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa laga dhagax dhigay bridge cusub oo isku xidhi doona xaafadaha City Plus iyo sidoo kale xaafadda October oo kamid ah xaafadaha ku yaala magaalada Burco. Waxaa bridge-kani cusub dhagax dhigay mas'uuliyiinta maamulka dawladda hoose degmada Burco. bridge-kan la dhagax dhigay ayaa lagu dhisi doonaa iska wax u qabso. munaasabadii koobnayd ee lagu dhagax dhigay bridge-kani cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday, xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Ismaan Sheekh Ismaan Nuur. ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Burco, maayir ku-xigeenka xogayaha fulinta dawladda hoose iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, kuwaas oo dhammaantoodba ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco inay ka qayb qaataan dhisida bridge-kani. bridge-kii lixaad ee ay Burco kan waa kii lixaad. lixda bridge hal bridge baa dawladii China ay dhistay, shanta kaleba reer Burco ayuun baa dhistay. Kana maanta reer Burco aan u dhagax dhigaynaa, anagu hormuud baanu ka nahay dawladda ahaan. Inta ugu weyn waxa ka qaadan doona biidnillaahi madaxweynaha qaranka. waxaan dheernahay gobolada kale odayaal iyo cuqaal iyo salaadiin iyo haween iska wax u qabsashada Togdheer dantooda ka horeysay. anagu leading kaan leenahay in dadku hogaamino marba wixii dantu gobolka ugu jirto aanu hogaamino, hay'ad u soo xagno, madaxweynaha qaranka iyo dawladda u soo xagno, shicibka maartay jeebkooda baarano, dabeedna wax muuqdaan dadka u sameeyno. ma aha mar walba anagu waxaan hayno wax ku sameeyno ma, laakiin dadku waa inuu hogaamina dhinaca horumarka. maanta waxaanu dhiganaynaa bridge runtii halbowlo ah bulshada reer Burco oo la oran karo hadduu sameysmo waxa baahida looga bixi karaa xaafad ballaaran oo xaggaana October cirifka u xigta xaggaana Balaasa u xigta oo markii hore soo wareegi jirtay 10 kilomitir oo wareega oo 2 saacadood oo wareega soconaysa. maanta haddii arrinkaasi suurtoobo ilaahay idinkii ayaa 5 minute isugu gudbi kara ama 10 minute wax ka yar. ilaahay baan ugu mahadcelinaa saaka wixii loo caloolsan yahay ee lagu midoobo ee reer Burco caan ku haya waxay hayeen wax wada qabsiga horeen ugu dhisnay ka biqimayno. labada wado inta u dhaxaysa ayuu bridge-kan isku xidhaya, waana bridge baahi weyn loo qabay. anigu hadda waxaan la hadlayaa xukuumadda iyo mashaariicdan SDF leeyahay meesha ka wareegta galbeedka. waxaan leenahay wixii lacag badan baa ururtay imika, lacag badanna waad haysaa. qolada bariguna asaas sumay galbeed soo eegaysa waxa uu horeeyay ee khasnada u furta ha noqoto bridge-kan Burco. markaa Burco way ku xusuusanaysaa waxa qofku qaatay ee laga reebaano waxa taraan waxa wax tara waxa reeba ee danta guud Burco waxay kugu xusuusan doontaa ama ku celi hadaa doonayso lagu celi karaya bridge-ka haddii waxa aad ka qabato taas uma inoo dhaxaysa. runtii aan halkan baaq ugu soo jeedinaa oo rajaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu qaybta ugu weyn isagu ka qaato runtii maadaama baahi weyn loo qabo oo inta badan xaafadahan uu kala xidho ay togu in mashruuc nagala qayb galo. ugu dambeyntii waxaa munaasabadani kooban ee lagu dhagax dhigay bridge-ka cusub ka hadlay salaadiin, cuqaal, mas'uuliyiin iyo sidoo kale injineerka dhisi doona bridge-kani cusub, kuwaas oo dhammaantoodba soo dhaweeyay bridge-kan cusub ee dhagax dhigtay dawladda hoose degmada Burco. bridge-ka waxtarkiisa iyo manaaficiisa Burco ma kala leh, waa mid waliba ay u baahan tahay oo ay maxay tahay ay u ahayso. Burco waa taasoo waa mid waxayna ku horumartay waa iska wax u qabso iyo midnimo tiibaynu maantana halkan kaga baaqaynaa. u mahadcelin haddaan nahay odayaashii gobolka iyo waxgaradkii gobolka in golaha deegaanka ee maanta in halkan maanta dhagax dhigaya. dadka kalena waxaan ugu baaqaynaa ee shacabka reer Soomaaliland dibad iyo guud sida odayaashu sheegeen inay horumarka wadooyinka, caafimaadka, waxbarashooyinka waxyaabaha wax weeye daruuriga ah inay sadaqadooda fahmaan. waxaan idinka codsanayaa walaalayaal awalba sadaqad jaariya waynu qama jirnay waynu heelanayn, maantana waxaan idinka codsanaynaa insha Allah bismillaahi kariin ina tan nagala qayb qaadataan, tii dahab haysa, tii xoolo haysa, tii aad haysa, tii lacag haysa. Burco waxay caan ku tahay oo ay ku caan baxday oo gobolada kale kaga horeysay iska wuxuu qabsada ayay caan ku tahay. waxay qabsatay jaamacaddii bridge-kii weynaa ee Burco ee labaad, waxay kaloo qabatay cusbitaalka Maandhaye, waxay qabatay wadooyin, kanna waa bridge-kii lixaad. Shaakir Cabdi Axmed, Saab TV, Burco.